soo dhawaada warka duhurnimo SNTV qodobada aad ku daawan doontaan aduura beedmana waxaa ka mid ah bandhiga dalxiiska ee socdaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho kaas oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo shirkadaha duulimaadyada. shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayaa maanta ka qayb galay barnaamijka isxilqaan oo lagu qalabeynayo tiyaatarka qaranka oo dhawaan la qorsheynayo in dib loo furo. wararka dibaddana daawadayaal waxaa ka mid ah qaraxyo ayaa lala beegsaday aagga cagaaran ee magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Ciraaq halkaas oo ku yaalan safaaradda Mareykanka iyo saldhig ciidamada Mareykanku leeyihiin. intaasi waxay ayaan qodobadii ugu waaweynaa warka duhurnimo SNTV haatan oo diyaar garow warkii oo dhan. bandhiga dalxiiska ee socdaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka bilaabay magaalada caasimadda Muqdisho waxaana si wadajir ah u soo qaban qaabiyay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo sidoo kale dallada isu taga duulimaadyada ee magaceeda SATA loo soo gaabiyo iyo sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyadoo qayb ka qaadanaysa. hadda wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa waxa uu sheegay in dawladda wax badan ka qabatay arrimaha socdaalka. wax kasta oo la isku dayo wuu mira dhalaa. waxaa jiray xilli naloo sheegi jiray airportka habeen lagama soo degi karo, waa beenina. waxaa la yidhaha Soomaaliya hawadeeda ma maamulan karto, waa beenina. waxaa la yidhi aykawa idinkama ogolaan doonto inaad xor noqotiin, waan beenina. shirkad iyo hay-ado isku tegay Soomaaliyeed travel agenciesku ma dhismi karaan baa la yidhi, taasina waa beenina. marka waxyaabaha inoo dhiman oo ay ka mid yihiin insha Allah tacaala Somali Airlines waxaan rabnaa inaan beenina iyagana. amniga hadduu kobco dhaqaalaha iyo wax kastoo kale ee la xiriira wuu kobcaa. marka insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa dhammaan inaan ka wada shaqeyno amnigeena, in aanan lagu hadlayn oo keliya ciidamada aan dhammaantan ka shaqeyno amnigaas. shalay sida aad la socotiin waxaa la ansixiyey sharcigii duulista rayidka ayaa la ansixiyey. waa markii ugu horreysay dawladda Soomaaliya ay yeelato sharciga duulista rayidka oo ay ansixiyaan golaha shacabka. wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen ololaha isxilqaan oo laga fuliyay tiyaatarka qaranka oo dhawaan dib loo furi doono. haddaba agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxiin Ciise Caddo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay markii 11aad oo wasaaradda ay ka qayb galayso isxilqaan iyo sida ay muhiim ugu tahay shaqaalaha dawladda ay arrintan ka qayb galaan. maanta waxaan joognaa golaha murtida iyo madadaalada National Theatre. waa kaltankii 11aad barnaamijka mashruuca isxilqaan. hay-adaha dhammaan waxay u tahay 11 laakiin wasaaradda warfaafinta waxay u tahay 12 oo wareeg koobaaday kaligood galeenaa jira. halkaa shaqaalo waxay u yimideen maanta sida ay arkaysiin. waxaa loo diyaar garoobayaa qalabayntii ugu dambeysay golaha murtida iyo madadaalada. halkaan gadaasheenna ah alaabta la wado waa alaabtii qalabkii la dhigi lahay hoolka tiyaatarka. shaqaaluhu waxay ka shaqaynayaan qalabkaas qaadistiisii gabdho iyo wiilal iyagoo ah gabdho iyo wiilal, odayaal iyo dhallinyaro, maamooyin, dhammaan waxaan is wada xil saarnay iskaa wax u qabso. qaybaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda sida hobolada qaranka waa beri, wariyaasha warbaahinta dawladda, shaqaalaha kale maamulka ka shaqeeya dhammaan halkan waxay isugu yimaadeen inay dhammaystirka waxaa la yidhahdaa finishinka ama laborafino ama dhammaystirkii shaqadii tiyaatarka inaan maanta ka qayb galno. farxaday noo tahay 11 bilood ama 12 bilood oo xiriir ah shaqadii socotay oo 12 ama 11 aan ka qayb galnay. maanta inaan kuraastii iyo katiifadihii iyo inaan qaadayno alaabihii ugu dambeeyay aadaan ugu faraxsannahay. nuurkii iyo iftiinkii noo soo noqonayo oo isha macalinka ah wax qarsoon ma ahan. halkan aan taagannahay hoos waxaa noogu yaala mutleel qurux badan, kor waxaa noogu yaala nalal
iyo dhismo qurux badan jaranjaradii halkan ku tiila waa ujeedaa si ay qurxan tahay albaabadii waa kuwaana kuraaskii nalalkii diikoorkii meesha meel qashin qob ah oo madoobaad ah oo wasaqi hadda meel nadiif ah oo la dayactiray oo nal leh oo mutuleel leh oo jaranjaro qurxan leh oo diikoor iyo nalal leh waxa waaye wax kala duwan waaye barnaamijka waxaan uga qayb galnay goobaha dhammaan uu ka socda isxilqaan sida maktabadda qaranka madxafka qaranka golaha muftiga iyo madadaalada taalooyinkii oo dhammaadayo la furay inta isxilqaan ka socda wasaaradda hormuuday ka aheeday ama qayb lixaad lay kula heeday welina waxaan sii diyaarsanaa insha allah wixii dhiman haddii barnaamijyadan ay dhammaadaan oo tiyaatarka uu dhammaystirmo oo maktabadda iyo madxafka la dhameeyo goob kasta oo dawladdu ay ku baaqdo in isxilqaan lagu samaynayo wasaaradda warfaafinta shaqaalaheeda waxay yihiin nambarka koowaad insha allah aad iyo aad waxaan samaynaa wacyigelin warfaafintu waa hay-adda kaliya ama hay-adaha dhowrka oo tirsan oo si maalinlaha uga qayb qaata isxilqaan maalintii la furay ilaa maanta cabdisalaan iyo cabdirasaaq subax kasta waxay soo shaqo tagaan halkan maalin kasta waxaan ka samaynaa warbixin hay-ad kastoo timaada wasaarad kastoo timaada mas-uul kastoo soo booqdo shaqo kastoo la qabtaa si maalinla ah ayaan waxaan ugu baahaynaa bulshada taas macnaheedu waxaa waaye fariinta wacyigelinta ee bulshada si xoog leh ayay wasaaradda isaga xil saartay si yawmiye ah ayay noo samaysaa raadiyaha telefishinka social mediaha meel kasta waa ku baahaynaa fariintaasna bulshada soomaaliyeed waa gaartay waana ku farxeen waana ku qanacsan yihiin buurdhuubo ee gobolka Gado ayaa waxaa ka jira baahiyo dhinaca caafimaadka iyadoo maamulka magaaladaas inuu ku baaqay in arrintan wax ka qabashadeeda laga qayb galo wariyaheena Cumar Ciidruus Axmed ayaa warkan ka soo diray gobolka Gado gudoomiyaha maamulka degmada buurdhuubo ee gobolka Gado mudane Xasan Maxamed Cali Xasan Yare iyo mas'uuliyiin uu hogaaminayay ayaa kormeer ku tagay isbitaalka guud ee degmada buurdhuubo ee gobolka Gado oo uu ka muuqanayo burbur baahsan oo soo gaaray sanadihii dambe degmada buurdhuubo ee gobolka Gado waxay qayb ka tahay degmooyinka Soomaaliya ee gudoomiyeen kooxaha xag jirka gudoomiyaha ay mas'uuliyiinta la socday oo baahinta la hadlay ayaa dowladda federaalka iyo hay'adaha gargaarka ugu baaqay inay gacan ka geystaan dhismaha isbitaalkan u baahan yahay isbitaalka degmada buurdhuubo oo xiran muddo 6 sanadood ah wax shaqo iyo howl laga qabtay arag dayaca iyo dhibaatada daryeel la'aanta caafimaadka degmadana ay maalin ka dambaysa kasii darayso 77 gabdhood oo umur raacday oo rikoorka isbitaalka ku jirta oo uu buugi halkaa yaalo iyo hooyooyinka kale oo ka fara badan iyo carruurta yaryarka kale waayeelka ay uncountable yihiin dowladda Soomaaliya waxay dowladihii kale ugu duwan tahay dowlad kasta magaceedan u oranaa mudxilay kale isku dhamaan jiray oo awal tiri jiray laakiin waxa loo leeyahay jiray hadda laakiin dowladda waxaa lagu dhigay wasaaradda caafimaadka ugu dambeyn Xasan Maxamed Cali Xasan Yare gudoomiyaha degmada buurdhuubo ayaa hoosta ka hadlay in isbitaalka guud ee degmada buurdhuubo ee bulshada buurdhuubo kaashanaya maamulkooda ay ku dhisanayaan si isxilqaan ah isla markaana iska aruurinayaan lacag ugu talagaleen dib u dhiska dalkooda laga bilaabo 25 bisha koowaad ee sanadkan hadda ku jirno waxaa bilaabanayo wadatashi iyo qaadan ururinta buurdhuubo ay rabaan in isbitaalkooda ku nooliyaan oo kaga shaqaysiiyaan si loo baaqsado dhibaatooyinka maalin ka dambaysa kasii daraya oo isbitaalka iyo adeegyada caafimaadka waxaan samayn doonaa oo daawacayaa xafiiskayga iyo xogayntayda ay daabici doonaan insha allahu tacaala kaarka insurance kaarka loo yaqaano oo qof kasta uu bisha markay dhamaato qaaraanka degmada buurdhuubo uu naftiisa ka qaadaya isagan isu qaadayo lagu ururin doono insha allahu tacaala Cumar Ciidruus Axmed warbaahinta qaranka magaalada Abaadade ee gobolka Gado deegaanka Widwid oo hoostaga magaalada Buuhoodle ayaa waxaa 10 caruur ay u geeriyoodeen xanuunka shubanka halkaas ka dilaacay wariyaheena Maxamed Cali Bilaa ayaa inooga soo waramay magaalada Buuhoodle magaalada Woodwood oo ka tirsan degmada Buuhoodle ayaa waxaa ka dilaacay xanuunkii shuban biyoodka ayaa waxa uu geeriyooday in gaaraysa 10 caruur haddaba dhakhaatiirta Woodwood ayaa waxa ay ka warbixiyeen caruurtan u geeriyootay xanuunka shuban biyoodka oo muddooyinkan ka dilaacay magaalada Woodwood ka jawaab xaaladaha degdega
xogtii la soo geliyay xogta meesha tahay isku inta inaan fiirno data quality audit inaan sameyno fala socoteen daawooyina waan keenay qayb ka mid ah halkaan waad ku arki doontaan insha Allah waxaan rajayn doonaa arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan laba qodob mid waxa weeyaan waa حوالين كيس مانجمنتي انت هذه حوق للصار dad badan baa la sii garan karaa marka inta waqti xoog la saaro patients-ka iyo dadka imaanaya xarunta si fiican intii loogu shaqeeyo taas waa qodob midda kale kiisaska qaybtood shuban baa ku jira dabcan waa la socotaa shubanku la mid yahay ka mid yahay xanuunada dilaaga ah ilaa hadda dhowr qaybood laba qaybood baa ugu muhiimsan mid waxaa la yidhahdaa PD oo blood diarrhea midna waxaa la yidhahdaa acute diarrhea oo ah shuban biyoodka midna other acute diarrhea marka ilaa iyo hadda aan wadno hawshii aan halkan u nigi ee ahayd gurmadka aan u sameynaynay dadka ay haleeleen xanuunada kala duwan ee deegmadan Woodward mar labaad waxaan mahad celinaa dhammaan partnerska ama cid kasta oo gacan ka geysatay hawshan gurmadkeeda ama taakuleynteeda ama sidii wax looga qaban lahaa xaaladan caafimaad ee ka jirta deegaanka intaa ka sokow annagu waxaan ahay dhakhaatiirtii dhankaas caanood ka timi afar cisho ka hor markii xanuunadana dilaaceen ee gurmadhaan yimaaday haddaan samariis yar ku sameyno ama siro kooban uga warbixino horta meesha waxaa ka jira dhowr xanuun oo kala duwan sida dhawaaqadu sheegayaan hal xanuun iyo waxyaalo noocaas ah dadku dhawaajinayaan laakiin sida caadiga ah dhowr xanuun oo kala duwan oo mid walba saameyntiisa leeyahay meesha ka jira baa qayb ka ah carruurna u dhimatay qaarna u jiifaan qaarna recovery ka qaateen waxaan sidnay agab ka kooban dawooyin xanuunka markii emergency laga soo sheegay shirbi wasaaraddu gashay waxaana lagaga hadlayay gobolka mudug iyo gobolka cayn gaar ahaan degmada gaalkacyo iyo degmada Woodward shirkaas waxaa la isla qaatay in la soo diro tiim caafimaad oo wasaaradda caafimaadku soo dirto sabalayna ay soo dirto tiimka waana soo gaarsiinay dhammaan wixii yaalay annagoo ka kooban waxa weeye wasaaradda caafimaadka iyo organizationka gobolka ka shaqeeya ee la wada yaqaano waxaan maanta soo gaarsiinay waxaan caafimaad oo iskugu jira infusionadii iyo wixii lagu sameyn lahaa rehydrationka iyo sidoo kale essential drugs baan keenay muhiim u ah in lagu manage gareeyo xaaladan sidoo kale waxaan keenay agab nadaafadeed oo saabuunihii iyo wixii kale loo isticmaali lahaa in lagu ilaaliyo nadaafadda xilliga la manage gareynayo emergency-gan si aysan cudurrada faafa isugu gudbin intaasaan hadda wadnaa insha allah laakiin waxaan rajeynaa support intaan ka badan inaan keenno laba casho ka hor assessment baan ku sameynay oo aan uga warbixinayna xaaladda dhabta u jirta maxamed cali bile telefishinka qaranka Soomaaliya buuxoodle warka dibadda haddii aanu eegno qaraxyo ayaa lala beegsaday aagga cagaaran ee magaalada Baghdad ee caasimadda Ciraaq oo ku yaalaan safaaradda Mareykanka iyo saldhig